activity at the Parliament. Welcome my colleague Mohammed Isse Omar. Thank you very much. take care of their husbands and their sons and to build. Our desire is to continue giving support to the interim administration within our capacity as exemplified by this particular training. AMSOM is planning further material and technical support for Gamarudi Parliament, among them equipping the library as a continuation of the capacity building program. waxaan ahay xubin ka mid ah baarlamaanka Galmudug gabdhaha metelaya waxaan ka faa'iidnay wax badan oo hore u aqoonin iyo anagu awal baarlamaan hore uma soo marin siyaasadna hore ugu ma jirinin hadda ay ugu horeysay laakiin maanta waxaan aaminsanahay in aan wixii aan ka bartay halkaan ku dabaqi karo bari markaan ku laabto baarlamaankaygii bulshadeedina aan si wanaagsan ugu shaqeyn karo waxyaabo badan oo aan hore u aqoonin ama aan fahamsanayna aan ka fahmay xitaa waxa kamid ah aniga dastuurkii maamulkayga oo la siiyay oo la igu soo doortay wax badan kama fahamsanayn saan ugu shaqeynayo laakiin maanta waxaan aqaanaa sharci markaan ka hadlayo qodobka aan marayo iyo cid kasta oo la hadlayo ama la macaamilayo waxaan kula macaamilayo oo sharciyan ah tababarkan ka xildhibaan Galmudug ahaan baahi badan ayaan u qabnay ilaahay baan ugu xamdinaqaynaa dan ciddii noo soo diyaarisay sida qubuurada Soomaaliyeed oo nagula hadlaysay hadallo aan fahmayno oo Soomaaliya iyo sidoo kale qabaqaabada oo ay lahaayeen AMSOM faa'iido badan ayaa laga faa'iiday waxaad ogtiin xildhibaano cusub iyo waxa ay dabaqayaan oo ah shuruudo maadka yani shuruuc aad u tiro badan la xisaabtan xukuumadeed waajibaadka ka saaran shacabka dhinacyo badan ayaa laga baray We are born a woman, that woman has